السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا سلام شرف سلام سلام يا كوسو دواد شنو فيها عشان حرام أقصد دواد أصحابي ما أنت واحد دنيا شيخ أنا oo baraha bulshada ku jira inaan su'aalo yar weydiiyo sheekhaas oo runtii markaan arkay ay aad aan uga yaabay su'aalaha waxyaaba dadka uu ku leeyahay iyo waxyaabaha uu dadka ma garanaysaa uu kasoo dhegay markaan arkay iyo waxyaabaha isaga afkiisa kasoo baxa maadaama uu sheekh yahay oo taytalka sheekhnimo wato yacnaha waxa isu kaliya qaban weyday taytalka sheekhnimada iyo qaabka uu ma garanaysaa sheekhu baraha bulshada ugu jiro iyo qaabka reactionka uu bixiyo iyo isagu inuuba yidhi wax meeshan lagama saari karo anoo in yar joogay baan caan noqday wax yar baan ku jira caana waa noqday horta mid waa runtii oo caan uuba yahayba saasuuba caan ku noqdayba isagoo in yar ku jira aniga baraha bulshada sheekhan anaa uga soo horreeyey aniguna maanta waa wadarkasaan meeshan joogo isaguna meesha joogo wadarkasaan aniguna waxaan ogahay baraha bulshada qofka xumaanta la yimaado ma inuu qofka caan noqon sheekhan waxaan is leeyahay taytalku wato iyo sida u hadlayo waa laba kala duwan runtii anugu waa sheekh shaydaan iyo dadku waxay yidhahdaan ma oran karo laakiin diintu qof walba uu yaqaanaa soomaali hadaynu nahay inta badan diinta waynu garananaa laakiin waxay ku xidhan tahay oo ilaahay horta lagu kala dhow yahay sida qofku ugu dhaqmo horta sheekhanu isaga wax walba ka jawaaba maadaama marka isaga wax walba uu ka jawaabo dhowr su-aalood baan weydiinaya su-aalahaas oo ah sheekh shantaayow wax eray aada iga yaabiyo baa jira wax iga jawaabaan garan waayey oo magaciisa la yidhaahdo shuubaa ku dhashay shuubaa ku dhashay shuubaa tahay shuubaa ku dhashay shuubaa tahay horta shuubo micnaheedaan kaa rabaa sheekhu waana kaa filayo waana kaa sugayaa waana kaa filaya inaad iga soo jawaabi doontid ilaa adaa wax walba ka jawaabe aduu waxa weeye sheekha baraha bulshada tahay marka afhayeenka baraha bulshada su-aalaha laga weydiiyo oo wax walba ka jawaaba maadaamaa tahay su-aalkana waa ii daba taallay waxa weeyaan waxaas sheegtay inaad sheekh tahay xagee bay ku qoran tahay buugga sheegaya sheekhu qof islaam ah ama qof doonaba ahaadee qof ilaahay xagga iin leh oo yacnaha ama lugla ama ilaa ama in lagu sheego oo lagu calaamadiyo hebelow ilaawow cawarow weershow kitaabka sheegayana waan rabaa inaad ii sheegtid sheekhow anigu in badan baan isha kaa dhowranaya islaha sheekh ka aamus laakiin sheekadaadu waa taraaraxda sheekh waa xitaa way istaagi weyday adiguna aad baad ugu faantay adigu sheekhow hadda ka horna dee dadka waxaad ka waaninaysay xumaanta waxaad leedahay xumaanta reeba onugu xumaanta waxaan u taaganay qof xumaanta dadka ka reeba waxaad tidhi janaalo fara badanoo waxaa jira khaniisiin leeyihiin ninka sheekha islaamka khaniis ereyga la yidhaahdo waa erey xun marka run la sheego diintana waa ka mamnuuc adna waad og tahay kolley nin diinta garanaya waa tahay laakiin waxbaa iskhilaafsan aduu isqabadsii dadkii inaad wacdido oo xumaanta ka reebto haddana aad xumaanta ku fooldhaqto ku farxato jawaabahaas waxaan doonayaa sheekhu horta inaad ka soo jawaabto waxyaabaha waxaa ka mamnuuc ah sheekha inuu ku hadaaqo waxbaan dilayaa anaa dad ii shaqeeyaa markaan waxaan is leeyahay sheekhow waxyaaba fara badan baa isugu kaa jira sheekh kala kacsan ayaa tahay kuma xuma inuu sheekhu kala kacsado laakiin maadaamaad kala kacsanaysid anigu waxaan kuu soo jeedin lahaa taytalka sheekhnimada iska dhig caadi markaa waxaad noqotaa nin baraha bulshada ku jiro caadiga ka shaqaysanaya ilaa waa iska caadiya cid kuu diidaysa ma leh qof walba isagaa xora meeshaan soo galay laakiin aad dadku waxay uga yaaban yihiin oo anigu aan kamid ahay dadkan aan kamid ahay waad iga cilmi badan tahay horta runtii sheekh aad u cilmi badan baa tahay cilmiga allah kuu barakeeyo cilmiyaasha wax fara badan baad ka taqaanay meelo badan baad la gashay cilmigu kula galay marka cilmigu waa kii ma garanaysaaye horta waxyaaba badan ka sheekeeya laakiin waxyaaba badan laga sii rigtaa jira sheekhow diintana mararka qaarkoodna wax iska hor imaanaya jiro adiga qowlkaaga ficilkaaga ka hor imaanaya
marka horta xawaaraha inaga yar dhin baan ku leeyahay sheeknimadana bal maxaa u dhexeeya farqiga qofka in lagu yiraahdo ila diinteenu waa reebtay waxaana tiri diintan u adeegaya qof in ciladiisa ku sheegtid xagga diinta waynu ognahay waa ka mamnuuc laakiin adigu kitaabkaaga kuu sheegay in qofka ciladiisa ku sheegtid baan doonaya inaad ii sheegto su'aalaha dhowrka ayaa sheekhan ku soo weydiiyey iga soo jawaab beenta haddaa moodina afkaaga iyo dhagtaada ismaqashii waa kuwana sheekha waxaad ku hadashay anugu adiga been kaa sheegi maayo sheekhow sheekhaygii baa tahay waad ii sharaf allah iyo cisba karaama ku haya laakiin bal sheekhow naga bandheeyo waatan adigu isdhegeyso waa kanaya oo cilmi oday u yahay waxaa naga soo horjeedo qolo gabdhaha qaawisa dadka xishoodkan ka dilaynaa xishoodkana waan ka tirtiraynaa faraha bulshadu way daawadaan sawirkan inaad adiga i saarto waa lagu ogyahay marka goolka waa laga qabtay gool kale soo tijaabi nala isticmaalay oo youtuber lay ah oo facebook lay ah oo tiktoker lay ah waa soo wadna oo aan muslim ahayn waana qaadid cadayn baana keenaynaa inayna muslim ahayn ayaka caday doon kaarle oo ku aan baxay dadka inuu inta live soo saaro saddex shay hadda marayna wiigan dhaxdiisa wuxuu qofu live soo saaro markaasuu wuxuu leeyahay in aniga i caay in afxumo dadka la furo intay ku taala ninkii qaawiyay qofkii qof ugu dhawaay ninkii qaawiyay bulshada kale inuu qaawiyo mudahaya ayuub kaarna ilama dagaashana anigana lama dagaashan inta ogaada ee waxaan isku haynaa gabdhaha yaa la qaawin عذال وير شحوح iyo shawgiisa yaa la aaday miga balan qaadaysin codka kor u qaada balan mu ku galayna ana shawga la aadayn fanka socdaal waa niic iyo dhiiqo waay socdaal eeyahu la sheekaysta sharma boy waxa soo dhaweysay gabar hal shay ma wadato hal shay iidoona wadan ay sharma boy soo dhaweysay markaasuu ku dhuftay dhaj oo ku boobo social media maanta sheekh Shantaya ku jiro saasan isku daba joogayna aniga idinka sharma hal milyan baa daawatay hal maalin 360,000 oo views-na uu helay socdaal weer shuxuux ma wax ka sheego wariyay darada nagala taga goobihii ilaahay ugu jeclay buu wax ka sheegaya yaa arkay wasiirka diinta oo qaafta oo dhahaya fanka hala baajiyo wasiirka diinta oo qaafta oo khamriga iyo xashiishka iyo caraqa iyo taabuuga ka hadlaya arkay